munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay cisbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha caafimaadka Saleebaan Ciise Xagla Toosiye, wasiirka wasaaradda warshadaha Shacib Maxamed Muuse, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Xuseen Deyr, Xuqaasha, waxgaradka, salaadiinta, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley, ururada bulshada, haweenka iyo aqoon-yahanka, dhalinyarada gobolka. waxaana dhismaha cisbitaalka dhimirka ee Kaskaal Hospital hirgeliyay ururka mutadawiciinta ee Samakaal. ururkani oo ah urur dhalinyaro isla markaasina ka shaqeeya arrimaha bulshada. dhammaantood mas'uuliyiintii halkaas ka soo qayb galay hadaladoodii kamid ahaa. ururkii bilaabay dhismaha cisbitaalka dhimirka Gabiley oo ah cisbitaalka ugu weyn ee dhimir ee ku yaala Soomaaliland. dadka dibadda looga soo diray lacagta dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin dhakhtarka dhimirka oo dhamaystirkiisii maanta halkan loo fadhiyo. Samakaal runtii aad iyo aad baan u salaamayaa muddaan iminka la soo shaqaynayay. waa niman u heelan horumarka degmada, waa niman ka bilaabay meeshii ay ahayd, waa niman u kacay inay wax u qabtaan dadkeena kuwa ugu jilicsan ee ugu baahida badan. aad iyo aad ugu mahad celeynaa ururka samafalka ee Samakaal oo runtii xaqiijiyay yool aad iyo aad gobolka Gabiley iyo guud ahaan Soomaaliland ugu muhiima. waxa dabooshay kaalin bulshadu u baahnayd inay daboosho dadka ugu jilicsan ee maanta Soomaaliland ama gobolkeena ku nool. goobtii lagu barnaamijka iskaashiga dadweynuhu uu yahay mid lagama maarmaan ah ummad iyo dal iyo gobol iyo degmana lagu dhisi karo. macnii tobankii guri waxa laga soo helayaa 2 guri ama 3 guri oo qof aan dariif ahayn uu joogo. markay sidaa tahay waa wax qof kasta oo reer Soomaaliland uu u baahan yahay gobolku doonaba ha jooge in gobol kasta iyo degmo kastaba la gaarsiiyo in la sameeyo cisbitaallo dhimirka. waxa loo baahan yahay nimay ku hadhay hawlahaysay dadaalka in la labalabo oo cisbitaalka maanta la sameeyay inaan halkaa laga gaadhin runtii. aynu kala waxaan nahaynaa inaan maayiro wanaagsan oo afkaro wanaagsan oo diin leh oo dhaqan oo xafiisku u furan yahay oo nin walba uu arki karo oo iman karo oo kii wax sharci oo oran kara sharciga abaabulada waxa waabdeed waa fashaa kii aan sharci lahayna oranaya de waxa sharciga diidan hore uu ka dabeecad weeye kuwii hore way nin walba 3 telefoon buu lahaa. Esta kale waxay si wada jira maamulka gobolka iyo wasiiradu u dhagax dhigeen ballaarinta qaybta emergency-ga ee cisbitaalka magaaladaasi Gabiley. dhagax dhigana maanta hoolka emergency-ga gargaarka degdega ah cisbitaalka Gabiley. Tabaate cisbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley ayaa baahi weyn loo qabay walow aanay hore uga jirin gobolkani. waa Cabdi Cabdilaahi Daahir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Gabiley.